Hagia Sophia wuxuu ahaa masjid ay Muslimiinta fureen kadib markii ay Muslimiinta furteen magaalada Istanbul oo loo yaqiinay Qasطنطينية xilligii Suldaan Mohammed al-Thani oo loo yaqaanay Mohammed al-Fatix. Hagia Sophia waxay soo martay dhowr marxalad oo kala duwan. Sanadkii 532 ee miilaadiga, Imbaraatorkii Byzantiniyiinta Justinianka koowaad ayaa amray in kaniisad laga dhiso Istanbul oo markaas loo yaqaanay Qasطنطينية. Kalimadda Hagia Sophia waa kalimad luqadda Giriigga ah waxaana loola jeedaa xikmaddii Alle. Hagia Sophia dhisitaankeeda waxa uu socday muddo 5 sano ah. Justinianka koowaad ayaa rabay inuu sameeyo dhismo kaniisadeed taariikhi ah oo aan horey loo arag, kaas oo uu doonayay inuu kaga sarmaro dadkii kaga horreeyay talada. Kadib markii la dhameeyay dhisidda kaniisadda Hagia Sophia, Justinian markii ugu horreysay uu soo galay ayuu aad ula dhacay qaabka cajiibka ah ee loo dhisay. Waxa uuna dhahay, "Waan kaa sarmaray Suleymaanow," isagoo ula jeeday Nebi Suleymaan. Dhul gariir dhacay sanadkii 558 miilaadiga ayaa sababay burbur ku imaaday Hagia Sophia, kadibna dib ayaa loo hagaajiyay loona furay. Hagia Sophia waxay noqotay mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee taariikhiga ah. Waxay ahayd kaniisad in ka badan 900 oo sano. 1204 ilaa 1261 waxaa la wareegay Hagia Sophia Saliibiyiinta, kadibna waxaa dib ula wareegay Byzantiniyiinta. Kadib markii ay khilaafadii Islaamiga ahayd ee Cusmaaniyiinta ay furteen magaalada Qasطنطينية ee hadda loo yaqaan Istanbul, Hagia Sophia waxaa loo bedelay oo laga dhigay masjid. Suldaan Mohammed al-Fatix, suldaankii furtay Qasطنطينية, ayaa salaadii ugu horreysay oo ahayd Jimco ku tukaday masjidka Hagia Sophia. Waxa uu suldaanka amray in la suuliyo raadadka masiixinimada iyo sawiradii masiixiyiinta ay ku naqshadeeyeen. Waxaana muuqaalka kaniisadda loo bedelay gebi ahaanba masjid qurux badan oo aad u weyn. Hagia Sophia waxay noqotay astaan islaami oo taariikhi ah oo ay Muslimiinta ku faanaan. Mustafa Kemal Atatürk, aasaasihii Turkida cusub, ahaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga, oo ahaa ninkii ka qayb qaatay burburinta khilaafadii Islaamiga ahayd, sidoo kalena Muslimiinta u diiday waxyaabo badan oo waajibaad islaami ah inay toos u gutaan, ayaa amar ku bixiyay inaan lagu dukan karin Hagia Sophia. Waxaana ugu dambeyntii Hagia Sophia laga dhigay oo loo bedelay madxaf fanni ah. Kadib Hagia Sophia waxay noqotay goob loo dalxiis tago iyo madxaf lagu kaydiyo taariikhaha Turkiga. Sanadkii la soo dhaafay kaliya waxaa booqasho ku tagay Hagia Sophia dalxiisayaal gaaraya ku dhawaad 4 milyan. Muddo sanado ah waxaa jiray codsi ka imaanayay Muslimiinta ayagoo dalbanaya in Hagia Sophia dib loogu celiyo masjid. Maxkamadda sare ee Turkiga ayaa 12 Julaay kansashay go'aankii la soo saaray 1934 oo masjidka Hagia Sophia loogu bedelay madxaf. Waxaana loo codsaday arrintaas dukumiintiyo taariikhi ah oo caddaynaya in Mohammed al-Fatix uu iibsaday dhulka Hagia Sophia, asagoo ka iibsaday baadariyaalka kaniisadda ka hor inta aan loo bedelin masjid. Taas oo ay ka dhigan tahay in dhulka Hagia Sophia uu yahay dhul islaami ah oo ay Muslimiinta leeyihiin. Isla markii ay maxkamadda kansashay go'aankii, madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa saxiixay in Hagia Sophia loo bedelo masjid laguna soo celiyo masjid, asagoo iclaamiyay dib u furista masjidka Hagia Sophia. Wuxuuna sheegay in 24 Julaay lagu dukan doono salaada Jimcaha, waana lagu dukaday. Waxa uu intaas raaciyay Erdogan in dowladdiisa ay samaysay waxay xaq u lahaayeen cid alla ciddii ka soo horjeesata arrinkaasna ay macnaheeda tahay inay ku soo xadgudbayso arrimaha Turkiga u gaarka ah.